هلا بحازم. ازيك حبيبي؟ تفضل. اهلا وسهلا. تفضل يا حازم، سودو. كيفك؟ الحمد لله تمام. طمني مudana عنك. george waan dhowahay يعني waxaad ii sheegtaa maadaa wax dulmiyey mise waa lagu dulmay marna anaa dulman marna anaa wax dulmiyey bal aan ugu warramo dadka daawanaya qisadaada. xaasim waa arday jaamacad soo dhameeyey kana soo qalin jebiyey kuliyadda ganacsiga. nasiib xumo shaqo laakiin muu helay. muddo kadib wuxuu ka shaqeeyey shaqo dirawalnimo ah, sida matalan gawaadhida waaweyn ee aroosyadii loo sharaxo ayuu kaxan jiray. isaga oo shaqa maalmeedkiisii ku jira waxaa rakaab ahaan u soo raacday gabadh aan jinsiyaddeeda halkan ka sheegi karin, waxaanay weydiisay shaqadiisa iyo inuu si fiican u kala garanayo waddanka Masar. waxaana u sheegtay inay rabto ninkeeda inay xashid doonayso inuu soo iibiso, isaguna uu caawiyo haddii uu meel garanayo. isagana wuxuu eeganayay rakaabkiisa, raaligelinta rakaabkiisa kamaanu diidi kareen. wuu dooday wuuna u soo iibiyey xashiddii, laakiin intii uu soo socday ayaa askari qabatay isagoo weliba xashiddii wada. maxkamad kadib waa la xukumay, wuxuuna halkaa ku mutaystay 6 sano xadhiga. muddada uu xabsigaa ku jiray waxaa dhacay kacdoonkii waddanka Masar, isaguna halkaa uu ka soo baxay. markii uu dhammaaday kacdoonkii waddanka Masar, jeelkii ayaa dib loogu celiyey, halkaasaanu ku soo dhammaystay muddadii ka dhinneed xukunkiisa. qisadu intaanoo keliya kuma koobna. intaanu xabsiga gelin waxaa u mehersaneed gabadh laguna magacaabo Amaani. waxaa ka dhexeeyey jeceyl aad u sarreeya, aqalgalkoogiina wax yar baa uga hadhsanaa. haddaba markii Amaano ogaatay khaladkiisa inuu ninkani xashad iyo howlahaas lagu qabtay, cidna may weydiin, iska daayo xataa jeelka kumay soo booqan marnaba. 6 sano kadib wuxuu yimid istuudiyahan Musaamax Kariim si uga mid noqdo kumanaanka qof ee ka soo qayb gala barnaamijkan Musaamax Kariim, soona hor istaago gacalisadiisii uu muddada badan kuna dhahana waan ku jeclahay oo guurkeena intii ka dhiman dhammaystirano. soo saamaha haa waa sidaa. wax kalaa jira? may ma wax kale sheegaysaa jira? adugu waddoon baa tahay, qofka waa kuu diranaya xashadiisu iibi, mad soo iibinaysaa markaa? waan diiday markii hore runtii, laakiin dee gabadh bay ahayd oo markii dambena waan iska yeelay. waanaan is ogaa sida runtiiya inaan anigu khalad galay. sida runtiiya iyadii ii diratay daroogada ayaa markii dambena askarigeeda iigu yeedho ay xidhay. oo se iyadu ku xidhaynaa? iyaday markii hore ciidanku qabteen, kadibna anigay soo sheegtay. maxaad isleedahay adigu gabadhaas kugu soo dacweysay haddii howlkuu diratay? aniguba taasi waatan isweydiinayo. oo iyadu askartu miyaanay baadhin? may. markaa meeday daroogadii maadaa lagu qabtay markaa mise iyadaad u dhiibtay? haa anigaa hayo laygu qabtay. haa seed ku ogaatay markaa iyadu inay ku soo sheegtay? aniga askartu way soo kaxaysay, waxaanay keeneen saldhiggii markaan imina waxaan ugu yimi askartii iyo inantii. miyaani markaa saldhigga timaadeen iyadu aanay hadalaanay odhan anaa ka dalbaday? maya, iyadu waxba kamay hadlin. kadib anigana waa lay qabtay. daroogadaad waday markaa intee in leeg bay leekeed? waxay ahayd 2 bacod. 2 bacodoo sideeya micnaha? bacdiiba waxaa ku jiray adigu rubuc kiilo. rubac kiilo? waxaad ka wadaa 2 bacodba iskiilo bay adigu qiimahooga imsuu ahaana? qiimaheedu waxay ahayd 2,800 geni. geni 5 sano ka hor. kaloo sheekadaadu sheeko kale dhashay. gacanta maxaa kaaga dhacayna? gacanta markii lay qabanayey waxaa iga soo gaadhay dhaawac. oo mayla intii bay xidhan tahay gacantu markaa? gacantu waxay u baahan tahay qalliin. weli kumaan samayn qalliin miyaa? haa weli qalliina kumaan samayn. qarashka qalliinka lacag miyaad haystaa? maya iminka ma awoodo lacaga qalliin, laakiin kolley markaan shaqaysto ayuun baan qalli doonaa insha allah. taa wanaga ka wada hadalay. kollow gabadhaas aad igu sheegtay Amaana ayay ahayd soo maha? laakiin adigu ma is weydiisay Amaana inay la guursaday iyo inay magaranaysaa ee dee reero kaleba iska leedahay? haa waa weydiiyey, laakiin weli lama guursan. ma isleedahay imika way ku jeceshahay? wallaahi horta iyada jacayl weyn baa naga dhexeeyey, laakiin dee intii aan xidhnay oo dhan weli maan arag. maxay kuugu soo booqan weyday markaa jeelka? iyadu igamay filayn runtii inay waxaan iigu dhacayaan, iyaduna way ka xanaaqday, sidaasaana igu iman. waxaanay kaa filanayn bay kugu aragtay, kadibna iyaduna wayla weynaatay. waan fahansanahay inay gabadhan adiga xashad iyo darogoyn hore kugumay arag miyaa waxyaala qaarkood? ismaan lahayn aniga laftigaygu tanoo kalea kugu dhacaysaa, iyaduna waxaan igumay ogeyn igumanay maqlin, markaasaa awgeed ba uga xanaaqday. hadda iyada maxaad ka filanaysaa markaa? iminka iyada waxaan ka filayaa inay iska kay cafido oo ay saamaxdo oo ay ogaato
inaan anigu weli jeclahay. insha allah khayr bay noqon doontaa. haatan waanu diray fariintii gabadha ammaana la yidhaahdo, bal aan wada aragno inay oggolaatay. أهلا وسهلا سدو وندوى مدن شهر إيجورن حواش هذا سيتها نادو الحمد لله أنا قوم في عنها إيجورن سيده هو السوق هاد بدعيان يا ريما هاجو والله يا بنتهي واحد سويدينسا واحد برنامج كان عاطفي سما واحد كل سويدينسا واحد أنا كوجي يا ري وصاتما أنا قوم مدن هذه كان كو احترامه سيدا درت بين برنامج أنا قلنا أد بنك أجمع هذا علمي رنتي أنا كمان هقف كوجي يا ري قف بجرا دي كدونية igana codsaday inaan adiga ugu yeedho oo ku yeedhay marka anigu waad arki doontaana go'aankana adunba iska leh waanan ixtiraamaa oo qadariyaa dadkan u yeedho go'aankooga mararka qaar waxa dhacda in ay la yaab ku noqoto aniguna waa ku ixtiraamaa adigu si ha iska dhigin amba ha u maleen in si gaara lagu haysto amba waxyaalo kale adoon is hadhiisin haddii aad doonayso inaad ogaato qofka ku yeedhay shaashadaad nala eeg waad garatay miyaa u isbedelay miyaa 6 sano weeyaan aragtidiisuna kole way isbedelaysaa ma aragtido kaliya isbedelay mise waxyaabo kale wax kasta way isbedeleen 6 sanana way ahayd marka qof walba 6 sano isku bedelaya adigu ma waxaad ku eedeynaysaa isaga inuu ka fogaaday may fogaantaasoo kaliya aanu kuma haysto balse anigu waxaan ku haystaa sababtu sidan u sameeyay haddii uu wax kala samayn lahaa in yarun baan anigu dhaawacmi lahaa laakiin isagu wax xun buu sameeyey waanan u qaadan waayey xoogna waan u dhaawacmay haa aad ayaad u dhaawacantay markaa ileen adigu kamaad filinayn sidan kamaan filanayn si kastay haataba kaloo maqal iyo muuqaal waad isku arkaysaan isagaana kuu sharaxi doona taa intaan isagu kuu sharaxin ka hor haddaba waxaa gacanteeda ku jirta fariin uu kuu soo diray isagu bes maqalun adigu anigu waan garan karaa 6 sano haddiina ku weydiin maayo waan dareemi karaa 6 sano inaad xidhiidh yeelan karto oo ma garanaysaa aad reer yeelan karto oo ma garanaysaa dee waxyaalo fara badan midnaba aanu kaamaan weydiintaa laakiin isagu wuxuu leeyahay saa warqadan ku qoran gacalisadeeda xabiibaay aad ayaan kuugu xiisay maalin kastood iga maqneedna waad ila joogtay waan garanaya anigu dhaawacaan kuu geystay inay weyneed laakiin kadis bay ahayd waxaan alla kuugu dhaaranayaa anigu kama ganacsan jirin daroogooyinka si kastay haataba waan ka qoomameynayaa wixii aan sameeyey anigu waanan ogahay adiguna inaad ka qoomamaynaysataa laakiin waan ogahay inaad i rumaysanayso adigu sidaan u ogahay inaad weli i jeceshahay ayaan taanu dareensanahay weligaaba adigu waxaad ahayd gabadh fariida weligaana dadka hadalladooda kamaad baqi jirin waxaan doonaya inaan kuu sheego inaan khaladkaygii aan dareemay anigu waxaanan doonayaa inaan ku soo noqonno sidaan awal ahaan jirnay mar haddaad adigu i rumaysan tahay dadka kale aniga waxba igama gelin waan ka xumahay 6 sano oo noloshaynu dayacantay iyo ogolow inaan imika wada dhammaysano nolosha inta nooga hadhay waxaan kugu hor raali gelinayaa dhammaan ummaddaas oo dhan hortooda xanuun walow kuu geystay anigu waxaan ballan kuugu qaadayaa inaanan nolosheeda inta ka dhiman marnaba aan kaa fogaanayn bes adiguun mar keliya fursadisi ina saamax walmusaamax kariim anigu waan saamixi karaa laakiin hal shardi baan wataa waxaan u baahanahay 6 sano aniga iga lumay inuu ii soo celiyo inuu kuu soo celiyo 6 sano 6 sano ee cimrigayga aniga ka lumay ha ii soo celiyo waa kaas waa laga yaabaa inuu kuu keeno siduu igu keenayaa markaa 6 sano ee cimrigayga ka lumay yaad ii soo celin kartaa waxa soo socda ayaa ka wanaagsanaan kara wixii naga soo lumay wanaagu xaguu jooga adigu xabsi baaba soo gashay
adigu taariikh madow oo socotaa tahay haddii aan anigu noloshayda kugu darsadana sidaas sidoo kale unbaan noqonayaa qof xabsi soo galay oo noloshiisba ay burburtay siduu ubad iyo reer u dhaqan karaa carruurtayda haddii aan beri ka maalin iskuul geeyo oo la weyddiiyo aabbihiin wa'ayo ma waxay odhan doonaan waa ninkii xashiishadda ka ganacsanayay qof aan khaldamin adduunka ma jiro aadamuhuna wuu khaldamaa aniguna saasaan u khaldamay dadku way qaldamaan laakiin kanoo kale ma sameeyaan adiga qaladkaagu waa mid ka duwan dadka qaar iyagaa naftooda qaladka ka gala dadka kale ku hareeraysan dhibta ma gaarsiiyaan qof walaabana xor buu yahay qaladku gelaya nolosha ku noolaanayo laakiin adigu qaladkaad gashay anigii baad igu baabiisay iyo noloshaan dhisanaynay xaq umaad lahayn qaladkanoo kaleana inaad iga geshid anigu waan khaldamay hadalka hor u qaada anigu waan khaldamay iqaabtiisiina waan maray aniguna ma soo koobi karo 6 sannadoodan jeelka ku jiray dhibtii aan soo maray adigu wax kastoo kugu dhaca istaayil bay kugu yihiin waayo qaladka adigaa galay laakiin anigu dhibtan maxaan ku galabsaday aan ku weyddiiye adigu 6 sane iga lumay ma ii soo celin karaysaa waan doonayaa cimrigaygii ii soo way celi fiicnaan waa lahayd haddii la soo celinayo laakiin anigu taa ma awoodo wanaaguna waa xasmi halkiisa maqal haa mudane ammaano adigii waxaad dalbanaysaa 6 sano isagana 6 sano isagaa la Inuu soo kulmay. sababteeda adigu banaanka joogtay laakiin haddaan waxaasoo dhan geysan lahayn isaga waan garanay jeelka muu galeen laakiin adiga maxay kaaga luntay 6 sano waxaad cid kale u baran weyday anigu ma rabin inaan mar labaad halkii hore ku noqdo oon dib ka barta niman kale anigu waan dhaawacmay intaasaana igu filnayd aniga hadda noloshaydu way wanaagsan tahay anigaa shaqaystoo isku filan nin dambena xaggiisii maba eegin nin oo dhanna ninkanaan u nacay anigu ragba ma isagaad uga gooday haa marka nin dambaba inaad barataan dooni maysi haa dooni maayo anigu hadda waan shaqaystaa waana ganacsadaa marka hawlahaygaasaba iga badan ninkani qalad weyn buu galay hadduu xataa naag kala baran lahaa waxaanuu sameeyey taasaa ii dhaami lahayd aniga imkama waxaa laygu odhan doonaa nin daroogada iibiye guursatay u yara kaada adigu su'aal kalaa baan weydiinayaa waa kanoo waan aragnay xabsi buu ka soo baxay muxuu doonaya inuu ka shaqaysto markaa anigu iminkan leen xabsi gabar ka soo baxay shaqaysto meel sare taagan shaqo baan fiican ahay baanaan raadinayaa anaaba irsaaqadda fikrad ilaahayna ku way haya badan tahay ka waran haddii aad adigu guriga ii fadhiisatid aniguna gabar shaqaysata ayaan ahay ilaa nin maan adigu waxba qabsan karayn baa tahaye dee guriga ii soo dhex fadhiiso ilaa waabaad ceebaysan tahay marka horene sow saas maha sidaad anigu waan rabtaana xoogsanayaa maxaad ka xoogsan markaa ma baabuurtaad maydhi ilaan qofna shaqo ku siin maayo adige mise bajaaj baa kaxayn dee anigu shaqo fiican waan helayaa sidee baad aduu shaqo ku helaysaa yaa shaqo siinay nin daroogaystaa dad badan baa jira oo shaqay siinaya ilamaha aniga shaqo in lagu siinayo haddaa shaqo meelaha ka heshana ta ugu hoosaysa bay noqonaysaa adiga yaa shaqo ixtiraamle kuu dhiibanaya ma laga yaabaa mar labaad inaad shaqadaadii hore aad ku noqoto wuu ku noqonayaa aniguna iminka mihi naag darawal guursata bilaadanku wuu khaldami karaa anigu waan khaldamay laakiin waxaan doonaya inaad sidii hore ii anigu noqoto waxaan ka oran lahaa ninkan dhaawacana eere hana durin isaga su'aal keliya baanu ku weydiinayaa adiga ayaa go'aanka iska leh runtii annagu barnaamijkan waa kuu sheegnay barnaamijka waa musaamax kariim adiga ayaa go'aanka iska leh adigoon waxba ka dalban adigoon dhaawacin adigoon ku bahdilin dadka dhexdooda damee uu way kasbaday dhacday isagu taasi adigu imika ma doonaysid inaad ku noqoto miyaa oo ma rabtid inaad cilaaqaadkiinni dib u soo celisid u sheeg isaga adoo deggan 6 sano iyo howlaheediyo waxaas beri hore haayeen waa la soo dhaafay maantana mustaqbal baa idiga horreeyaa una sheeg adigii xor ayaa tahay go'aankuna gacantaaduu ku jiraa waanu ku karaameynay waanu ku soo dhoweynay sidaad ku timid amba adoo aroosaad bixi doontaa waad mahadsan tahay mudane ku dheh haddaba adigu waxaad hadda ku odhan karta isaga wari dhegayso anigu 2 eray unbaan ka odhanayaa adigu imika muuqiyo magac midna ma lihid niyadjab kuma fiicnaa ninkani anigaba wii xanuujiyey markaa si la mid aanaan u xanuujiyey daa mudane kama hayn inuu adig ku dhaawaco ulashiidkiisa ma ahayn ha noqon qof dulmisa adigu qasdigiisa ma ahayn isagii waa dhaawacan iminka u wado dhammayso may maqlaysaa ninow anu kuu soo laaban maayo anigu noqon maayo doqon maanta mustaqbalkayga nolosheeda ku ciyaarto adiga ku soo raacda aniguna waxaan ka fikirayaa haddaan ubad isku dhalno dhibtii ay mari lahaayeen marka anigu dooni maayo inaan wakhti iskaga kaalumiyo
mana doonayo beri ka maalin in lay weydiiyo ninkaaga muxuu qabtaa ama ubadkaaga aabbahood waa kuma haddii ilaahayba hablayna siiyo oy dhici lahaydba haddii laynaga soo doonan lahaa maxaan ku hadli lahaa sidee dadka u hor iman doontaa maalinta bes haddaba guul ayaan kuu rajaynayaa waanan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan barnaamijka nooga soo qayb gashay marka aad iyo aad waad mahadsantahay adigaa mudan garabkaaga mudane xaasim adigu dadaal maad yaraysan bes arrinkuma dhammaan isteji noloshu way kaa horraysaa mushkiladdoo keliya kuma koobna istuudiyahan iyo weliba jeelkaaad soo martayba sidaad jeelka uga soo baxday baad istuudiyahan uga bixi doontaa isku day inaad nolol fiican aad samaysato adoo weliba xifraddaada iyo aqoontaada adeegsanaya mustaqbal cusubna heli karaa adoon taa isku hadleen noloshaada adugu maaree guul baanan kuu rajaynaynaa aad iyo aad baa mid mahadsan tahay naftaadana ogow أيوة يعني ما فيني اضغط عليها كثير اكثر من هيك، معها حق البنت وهيدي حياتها، انا بعاملها كانه بنت، بعرفها كانه بنت من اهلي، فما فيني اضغط عليها. ارتكب جرم بيدفع ثمنه، بيدفع ثمن اخطائه، انسجن دفع ثمن، هلا بده يدفع ثمن كمان بالحياه لانه